kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysaan waa Gulwada TV fadlan janalka ku cusub tahay subscribe noo saar wararka idin hayno waxaa kamid ah midowga musharaxiinta oo cadeeyay mowqifkooda doorashada ku socota waxaa magaalada Muqdisho kulan maanta ku yeeshay inta badan xubnaha midowga musharaxiinta kuwaasi oo suluugsan habka ay u socdaan doorashooyinka golaha shacabka kulanka oo shirgudoominaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa waxay diiradda ku saareen ka hadlida walaaca ay ka qabaan doorashooyinka socda oo qaarkood ay sheegayaan in boob lagu wado afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo ay raadinayeen in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo balse ay ku guul dareysteen hoggaanka Villa Soomaaliya ee lagu aaminay dalka wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray in midowga musharaxiinta dadaalkooda ee keentay in ay ka hortagaan muddo kordhiska sidoo kale weli ay raadinayaan in dalka ka dhacdo doorasho hufan oo xalaal ah musharax Daahir Geelle oo sii hadlay ayaa sheegay in sida hadda ay ku socoto doorashada laga dhaxli doono burbur hanaan foolxun iyo in dalka meel xun oo gaaro waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan kulamo ay la qaadanayaan ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada kuwaasi oo ay kaga tashan doonaan arrimaha doorashooyinka intaasina waxaa ku dhan daawadayaal warka ka daawanaysiin Gulwada TV inagana waa ku mahadsantihiin la socodkiina